madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxiixay sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka qaranka kadib markii labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ansixiyeen xubnaha guddigan. madaxweynaha ayaa sheegay in dhismaha guddigani uu ka turjumayo sida Soomaaliya uga go'an tahay ilaalinta xuquuqda iyo karaamada muwaadiniinta, isagoo bogaadiyay wada shaqaynta baarlamaanka iyo xukuumadda taas oo aasaas u ahayd soo dhisidda iyo hubinta waafaqsanaanta sharciyada iyo diinta ee xeerka xuquuqul insaanka ee dhismaha guddigan. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku ammaanay wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka hanaanka dadaalka ee ku hogaaminaysay diyaarinta hanaanka sharciga iyo farsamo ee suurtageliyay in la helo guddigan oo diyaarsan gudashada waajibaadkiisa qaran. madaxweynaha jamhuuriyadda oo alla uga baryay in uu shaqadooda u fududeeyo xubnaha guddigan ayaa xasuusiyay waajibaadka laga sugayo ee ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo xoojinta nidaamka dowladnimo ku dhisan cadaalad, isla xisaabtan iyo hufnaan.